in xaaskaaga daacad aad u noqotid waxay ka mid tahay siraha uu ku horumari karo xiriirka ama cilaaqaadka ka dhaxeeya lamaanaha isqaba in la joogteeyo oo mar walba lagu dadaalo inaan marnaba la khiyaanin xaaska oo wax laga maarmaan ah lama huraan ah haweeneyda khiyaano markay ka dareento kalsoonideeda way jabtaa kalsoonidaasna mar labaad inay soo laabato ama sideedii ay ku soo laabato waa habeen xali tagay ma dhacayso marka haddii adiga aad samaysay ballanqaad waa inaad daacad ka noqotaa xiriirkiina jacayl waa inaad daacad ka noqotaa oo aadan marnaba khiyaanin haddii ay wax kugu soo siyaadaan adiga aad is leedahay xiriirkaaga kala dhaxeeya xaaskaaga ayuu gilgilayaa u bandhig u sheeg decisionka ama go'aanka iyadaa iska leh markaasi laakiin markaad wax ka kharisid ama aad khiyaantid ama aad dhagartid ama aad dibindaabiyadaysid ama isdabamarin aad samaysid meesha ma imaanaysa markaa cilaaqa xamiimaha ma imaanayso xiriir aad u sareeyana ma imaanayo kalsoonidiina way lumaysaa cadfigii iyo xanaantii loo baahnaana meesha wuu ka baxayaa iyo wixii markaas la mida haddaba waxaa lagaa rabaa daacadnimada xaaskaaga inaad ku dadaashid saygana xaaskana sidoo kale waxaa laga rabaa daacadnimada saygeeda iyadana inay ku dadaasho waayo midaasi ayaa meel lagu gaaraa guurkaasina wuxuu noqonayaa guur lagu najaxay guurkaas wuxuu noqonayaa guur khayr qaba guurkaas wuxuu noqonayaa guur jacayl ku dhisan guurkaas wuxuu noqonayaa guur loo aayo guurkaas waxa uu noqonayaa guur udgoon badan oo qurux badan oo heerkiisuna sareeyo ayuu markaas noqonayaa horta taatikada sayga waxaa loo baahan yahay taatikooyin iyo farsamooyin iyo baraaca markaas isaga laga rabo inuu la soo baxo si reerkiisa si wanaagsan ugu dhaqdo baraacada waxaa ka mid ah waxaan meel ku arkay oo social media ka mid ah qiso yar oo dhex martay say iyo xaaskiisa xaaska ayaa waxay ahayd dhalmo markaas wuxuu yiri orod hooyada iyada waxay tiri hooyo aqteeda ayaan rabaa inaan ku soo dhalo inaad ii fasaxid ii ogolaatid isagana wuu ka ogolaaday way baxday marka muddo ayuu u qabtay muddadaasna ku soo laqo ayuu yiri marka iyadoo isaga dhibaysa ama ka raadinaysa shay cayiman ayaa waxay tiri aniga xilligaas ma imaanaye xilli ka fog wax badan ayaan rabaa inaan meesha aan soo joogo sidaas ugu markaas wuxuu yiri waxba naga halaabo maaye horta maxay to maartay soo dhal waqtiga lagu talagalay ilaa xilligaas waaye kadibna gurigaaga imo marka waqtigii la gaaray way dhashay muddadii markii la gaaray ayaa wuxuu isku dayay marka inuu gurigeedu uu soo celiyo markaas iyadana dumar waa iska taqaanaan way ka diiday iyadoo markaas rajaynaysay inuu barbariyo dumarka inta badan in la barbariyo way ka helaan wayna jecel yihiin marka saas darteed marka aniga ma soo baxay tiri isagayna ku dhibaysa markii muddo ay ka maqneed marka ayaa uu intuu yimid wuxuu yiri aniga intii aad maqneed xaas kale ayaan guursaday qaybta sare ayaan dejiyay saas darteed marka waxaad sameynaysaa adiga halkaaga iska joog xilliga doontidna imow waa ka anigana xaaskayga kale ayaan iskala joogayaa markaas arintii qaracan ay ku noqotay way ka naxday oo lama filaanay ku noqotay haddii marka adigoo bannaanka jira mashaakil bannaanka uu kugu soo qabsado markaad guriga aad soo galaysid mashaakilkaaga albaabka iska soo dhig guriga mashaakilkaaga hala soo gelin dadka guriga jooga waxay u baahan yihiin gaar ahaan xaaskaaga waxay u baahan tahay
alxub walxanaan walcatf ayay u baahan tahay marka haddii markaas intaasi kaa weydo oo adiga mashaakilkii bannaanka yiilay oo gudaha aad keentid marka ama iyadiiba aad ku dabaqdid ama noloshiina aad ku dabaqdaan halkaas waxaa ka imaanaya marka isfaham waa ayaa ka imaanaya midka kale inuu dhibsado ayaa ka imaanaya halkii xiriirka kor loo qaadi lahaa lana horumarin lahaa sidaas darteed marka arrintaasi ha u daymo la'aanin waxayna ka mid tahay siraha lagu horumarin karo cilaaqaadka ama xiriirada ka dhaxeeya labada lamaanaha ah ee markaasi isqabta haddaba ma taqaanaa sixirka jacaylka maxaase laga wadaa anaga ma ka hadlayno sixirka dadka isku sixradaan ma ka hadlayno anaga waxaan ka hadlaynaa xiriirka ka dhaxeeya lamaanayaasha ama lamaanaha isqaba ee guriga wada jooga jacaylka sixir ayuu wataa yacni sixirka waxaan ula jeedaa macnaha dareen gooniha ayuu wataayo qofka si wanaagsan oo xoog badan u soo jiidanaya sixirka waxbaa lagu soo jiitaa soo maa jacaylkana wax buu soo jiitaa sixirka jacaylka waa inaad isticmaashaa marka haddaba maxaa ka mid ah marka suuragal ma aha in calaaqada macaan ee ka dhaxaysa lamaanaha isqaba iyada oo aan jirin dareen jacayl oo dhab ah oo labada dhinacba ah annaga kama hadlayno keliya dareenka iska caadiga ah ama dareenka jacaylka maalinlaha ah oo iska joogtada ah oo labada qabatimay sixirka jacaylka wuxuu u ziyaadiyaa raaxada labada isqabta qofka sayga marka uu xaaska u jecel yahay xaaskana ay saygeeda jeceshahay horta dareenkaasi qof dhadhamiyey maahane qof kale ma dareemi karo mana fahmi karo dhadhanka uu leeyahayna ma ogaan karo meesha waxaa ka dhalanaya marka xitaa heer wuxuu gaarayaa sayga ama xaaska waxay gaaraysaa in hadalkeeda ay hoos ugu dhigto saygeeda jacayl ay u qabto dartiisa hadal macaan oo deggan inay kula hadasho ama isagana hadal macaan oo deggan oo qalba taabasho leh inuu kula hadlo inta guriga la wada joogo inta guriga la wada jooga marka ama xaaska iyo sayga ay wada joogaan waxaa wanaagsan inaysan u wada joogin sida dadka caadiga oo kale ah tusaale ahaan dadka aad la shaqaysidoo kale sidaas la mid ah haddii xaaskaaga aad ula joogtid ma habboona yani ma qurux badna macaana ma dareemaysid waa inaad ka duwanaataa dadka bannaanka sidaad ula joogtay si ka duwan waa inaad ula joogtaa marka xaaskaaga ama saygaagaba meeshaas waxaa la rabaa marka inuu ka abuurmo hadalla macaan oo deggan jawi macaan oo deggan meesha inuu ka abuurmo sixirka jacaylka waa markii adiga xaaskaaga aad u muujinaysid mar walba inaad jeceshahay inaad u hilowdid inaad xiise badan aad u qabtid in la'aanteeda nolosha dhadhan aysan kuu lahaynin dareensii qiimaheeda dareensii makaanadeeda meesha ay la eg tahay adigana sidoo kale inaad saygaaga dareensiisid makaanadiisa iyo qiimihiisa iyo meesha uu kaa taagan yahay waxyaabahaas oo dhan marka waxay kaalin mug leh ay ka qaadanayaan sii jiritaanka ballaaran ama sii jiritaanka abid ee xiriirkaasi jacayl ee ka dhaxeeya lamaanaha isqaba noloshana wadaagay haddaba ad adayga fara isku taagtaaga canaanta qaylada buuqa isfahamdarada kalsooni la'aanta waxyaabahaas oo dhan waxaa muhiima inay meesha ay ka baxaan marka mas-uuliyaddeedana adiga ayaa iska leh oo sayga ah iyadana intaasay u baahan tahay dareen jaceylay u baahan tahay dhimrin ayay u baahan tahay cadfi iyo xub iyo xanaanay u baahan tahay intaasi markay kaa hesho marka gurigaasi wuxuu ahaanayaa guri ku dhisan
wanaag iyo kalgacayl iyo qiime laakiinse intaasi haddii maxay tumaartaan cagsigeeda meesha ay jirto noloshaasi laguma tilmaami karo cilaaqa macaan ma lagu tilmaami karo marka waayo qof walba wax uu raadiyaa inuu helo nolol romantic ah nolol jacayl ka buuxa nolol degan nolol isfaham ku salaysan nolol kalsooni ka buuxdo nolol naxariis ka buuxdo nolol ixtiraam iyo ismaqal iyo isdhagaysi ka buuxo nolol wada tashi iyo wax wada qabsi ka buuxo ayuu qof walba uu ku taamayaa inuu helo qof walbana wax uu mar walba niyada ku hayaa inuu ku guuleysto xiriirkiisa kala dhaxeeya xaaskiisa ama saygeeda sidaas darteed marka waxaan xooga saaraynaa marka oo aan iftiiminaynaa ama aan bidhaaminaynaaba kuna soo qaadanaynaa barnaamijkan bidhaamiye toddobadan sir oo markaasi aan isleenahay wax weyn ayay ka bedeli doontaa nolosha lamaanaha isku kalsoonaanta qofka bini aadamka ah ama saygaba sayga waa inuu ku naaloodaa kalsooni inuu ku qabo nafsadiisa inaad nafsadaada aad ku kalsoonaatid waxay keenaysaa inay si weyn ugu riyaaqdo xaaskaaga qofka hadduusan isku kalsoonayn micnaha caafimaad qabka nafeed ee uu leeyahay mid liita ayuu noqonayaa waa inaad ku kalsoonaataa awoodahaaga qofeed iyo nafsadba waa inaad ku kalsoonaataa awooddaada qancineed ee xaaskaaga haddii ay xaaskaaga kaa aragto inaad isku kalsoon tahay awooddaadana ay aaminsan tahay halkaasi waxaa ka siyaadaya riyaaqa xaaskaaga qof aan isku kalsoonayn nafta laguma aamino qof aan isku kalsoonayn nolosha laguma aamino qof aan isku kalsoonayn xiriirkiisa guur wuxuu noqonayaa mid dacfi ku yimaada ugu dambayntiina meesha uu ku dhammaado sidaas darteed marka waa muhiim waana laga maarmaan in kalsoonidaada nafeed ama kalsoonida aad nafsadaada aad ku qabtid inay mar walba ahaato mid top ah yacni mid heerkeedu sareeyo marnaba aysan hoos u dhicin xaaska waxay aad iyo aad ay u jeceshahay waxay aad iyo aad ugu dadaashaa waxay aad iyo aad ugu riyaaqdaa sayga nafsadiisa ku kalsoon sayga iyo xaaska marka ay guriga wada joogaan ama wadada ay marayaan ama meel kaleba ay joogaan waxa wanaagsan kalimaadka ay isticmaalayaan inay ka fiirsadaan isla mar ahaantaana kaalin weyn ka qaadanaya horumarka iyo kor u qaadidda xiriirka jacayl ee lamaanaha isqaba ka dhaxeeya macaanto xabiibti kalimaad oo fudud oo markaasi furo u noqon kara qalbiga xaaska dhimrinta iyo dareenka jacayl waa waxyaabaha ay aadka ugu baahan tahay haddii adiga marka kalimaadkaasi iyo wax la mid ah aad isticmaashid hadal dabacsan aad isticmaashid hadal la soo xulay aad isticmaashid oo aadan xaaskaaga kula hadleen sida dadka banaanka aad kula hadlaysid oo kale oo aadan xaaskaaga kula hadlin taagtaag ama hadal adag ama hadal dhaawac leh ama hadal niyad jab keenaya waxyaabahaas oo dhan waa laga fogeeyaa xaaska waxay u baahan tahay hadallo ka buuxaan dhimrin hadallo ka buuxaan dareen jacayl ayay u baahan tahay xaaskaaga marka madax aad ka dhunkatid ajar badan ayaad leedahay haddii garabka aad ka qabsatid sidaas si la mid ah haddii dhexda aad ka qabsatidna kaba sii fiicanba
dembiyada laga dhaafaya ajra lagu qoraya waxyaabahaas oo dhan marka ajarkaas iyo dembi dhaafkaas iyo waxyaabahaas oo dhan waxa la dhiirigelinaya marka xiriirka jacaylka ama xiriirka lamaanaha ka dhaxeeya oo cadfiga iyo xanaanta ka buuxa in kor loo qaado marka